waxa ay halbeeg u tahay horumarka ganacsiga yaryar ee sii kobcaya Somaliland taasi oo soo jiidata maalgashadayaasha caalamiga ah isla markaana suurta gelisay in ay ku soo xirmaan marba mar ka dambeysana ay ku soo dhiiradaan ka qaybgalka dhinaca ganacsiga Somaliland xaruntan Mr Cab waa farac ka mid ah shirkadda weyn ee qurxinta iyo dayactirka gaadiidka ee Mr Cab taasi oo laga leeyahay dalka Sweden waxaana xaruntan lagu daafuray munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa halka laga yeegleelay xayndaabka amase xarunta ugu weyn ee shirkadaasi ay ku yeelan doonto bariga Afrika munaasabadan waxa ka qayb galay saraakiil ka socota laamaha dawladda ganacsato iyo maamulka iyo howlwadanada shirkadaasi Cabdiqaadir Maxamed oo ah isagu khabiir ku takhasusay dayactirka iyo qurxinta gaadiidka kana mid ah howlwadanada shirkadani iyo Ismaaciil Xasan Nuur oo ah mulkiilaha shirkadani ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay u shaqeyn doonto shirkadani iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee ay u soo kordhiyeen macaamiisha shirkadan markii aan profile-keeda wax idinkaga sheego shirkadan waa shirkad la shaqeyso shirkadaha gawaarida gado sida Audi-ga shirkadda Toyota-ka shirkadda Nissan-ka ay la shaqeysaa iyo shirkadda Volvo-da shirkadan shirkadaha baawarada iibiya wadamada Afrika ee meeshii ay ku olin shirkadda Nissan-ka sida shirkadda Toyota-ka oo kale inay Hargeysa imaato hadda 100% way suurtagelaysaa marka walaalkay Ismaaciilna shirkadda Nissan ay ku taalo Sweden bishii 6 ilaa bishii 5 inay halkan imaadaan ay ka furtaan meel ay baawaradooda ku ganacsadaan ay ku tala jiraan sidii shirkadda Toyota-ka oo kale ayagana ma furi karaan iyagoona shirkadda Mr Cab ee meeshii ay ku olin waa inay shirkadda Mr Cab meeshii ku taalo sifa shirkadaha baawarada u iibiyaan ee halkan u imaadaan Mr Cab Afrika ka furto waa inaan qaadataa process aad dheer baan soo marnay alxamdulillah aakhir waanu keenay inkana waxaanu ramayno geer shaqada ka sameeyno shirkado baawaro fara badan aanu keenay Mr Cab oo kaliya kuma joogno insha Allah waxaan logwa waana soo dhaweynayna gacmo furan baan ku soo dhamaada macaamiisha sharafta leh meel kasta joogtaan waa soo dhaweyn Maxamed Cabdi Magan oo ah aqoonyahan ku xil dheer arrimaha maamulka iyo abuurista ganacsiga yaryar iyo sidoo kale Cabdilaahi Ubax oo ka socday wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaana ka warrameen ahmiyadda ay shirkadani u leedahay dalka iyo waxyaabaha ay ku soo kordhinayso marka ay qiimeeyeen noogu warramay Mr Cabdiqaadir waa shirkadii ugu horeysay meelaha ugu horeysay macna laga furo East Africa-da inaynu fursad u helo aad iyo aad bay Somaliland ugu tahay fursad qaali ah ama Afrika oo dhan malaha tii saddexaad baynu ka nahay maanta xafladan kuleebade warbixin tii isaga inuu ku inoo dhameeyay inaga waxaan raacnaa waxa weeyaan soo dhaweyn iyo sida dareenkeena aan ugu faraxsanahay inaan fursadan oo kale dalka ka helo marka haddii intaad fuusho gaariga aad beerka iskaga tagto socoto markuu istaago aad iskaga digto waxay noqonaysaa hanti aad baabiisay iyo cimri degdeg aad ugaad gaariga ku samaysay hore meelaha aynu geyno iska maan walba ahaayno meelaha aynu inagu ugu talagalay farsamooyinkeenii hore ayay ahayd haddaynu laakiin maanta helay Mr Cab waxaan qabaa in cimri dheer fara badan oo ku soo kordhay gaadiidkeenii maanta Hargeysa joogay ama Somaliland oo barbilo u ah shirkadu ay halkan maanta ka bilowday degmooyinka kale ee dalka mar hadday ka bilaabato arrin meel ka bilaabmo inta kale uu ku fidaon waxaan rajaynayaa iyagana in uu si dhib yar ugu fidi doono oo dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyay maanta ee halkan waa aragnimada ka qaadata ay la tegi doonto gobolada kale ee dalka laba yeelanay Somaliland waxay noqotay shirkadii ugu horeysay ee keenta shilada baalashka kana waxa weeyaan marka gaariga la baalashaynayo mishiinka waxa loo isticmaalaya dawadana loo isticmaalayo waxa dalaalka soo celinayo dalaalka gaariga oo dhan soo celinaya balaynayd ma sha Allah wuxuu ku soo noqonaya gaarigu sidii warshada looga soo saaray
gabagabadii mas'uuliyiinta iyagu munaasabaddan ka qayb galay ee dhinaca dawladda ka socday ayaa xariga si rasmi uga jiray xaruntan loogu talagalay dayactirka iyo qurxinta gaadiidka iyo waliba nadiifinta qaybta nadaafadda gaadiidka oo ah leebaajo casri ah iyo qalab kale oo markaasi ku saayida kaasi oo loogu talagalay in ay dayactir mugle ku sameeyso gaadiidka Salman Abdi Ali Kalsan TV Hargeysa.